kulanka ugu weyn oo maanta la wada sugayo waa mid ka dhexmaraya Man City iyo kooxda kubadda cagta Arsenal garoonka Emirates Stadium ee ciyaartan ka dhici doonta tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery oo runtii dhiirigelin fiican haysta marka la fiiriyo shaxda uu bedeshay iyo ciyaartooyda kulankan uu haysto waxa ay ku dhiirigelin kartaa in si cabsi la'aan uu ku wajaho Guardiola iyo jabhadiisa City. Nacho Monreal iyo Saeed Kolasinac ayaa ciyaartan laga yaabaa inay seegaan. waxaad ku arki kartaa kulankan Danny Welbeck inuu difaac ka ciyaaro. sidaa darteeda Saeed Kolasinac wuxuu kula biirayaa liiska dhaawacyada xidiga lagu magacaabo Laurent Koscielny oo muddo badan kooxdan ka maqan. sidaa darteeda waxaan fiirin doonaa City ciyaartooydeeda. City waxa uu diyaarisay xoodi cusub ee Riyad Mahrez oo kulankiisa ugu horeeyay isagoo City matalaya Premier League raba inuu ciyaaro. Raheem Sterling iyo Kevin De Bruyne labadoodiba waa ay diyaar noqdeen oo tijaabadii way ku baaseen. Benjamin Mendy ayaa asna ku soo bilaaban kara ciyaartan tan iyo September 2017. haddaba tababare Pep Guardiola oo ah tababare falsafad kubadda cagta u adeegsada ayaa inta badan rajeynaya ciyaartan in qaab degan uu ku soo galo. sidaa darteeda tababare Pep Guardiola wuxuu wajahayaa Unai Emery oo ay hore iskugu soo arkeen horyaalka Spain ee La Liga, balse Guardiola ayaa badin jiray kulamada is arkeen isaga iyo Unai Emery. Arsenal ayaa badisay laba ka mid ah 12 kulan oo Man City la ciyaartay. 5 bareej ay galeen, 5 jeerna waa laga badiyay. Man City ayaa badin karta kulamo xiriira iyadoo Arsenal wajahaysa markii ugu horeysay taariikhda tan iyo 1936. waa markii ugu horeysay Arsenal ay wajahayso kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League tan iyo 1970. markaasna Arsenal waxay la ciyaartay Everton oo 2 gool iyo 2 gool la galeen. markii ugu dambeysay labadan kooxood ciyaar furitaan ay ku kulmaan waxay ahayd 1994. markaasna George Graham oo Arsenal ka tirsanaa ayaa kooxdiisa badisay oo 3-0 garoonka Highbury ay labada kooxood ku ciyaareen. Arsenal waxay doonaysaa in kulanka natiijo fiican ay ku bilaabato. Man City dhankeeda si lamid ah waa markii ugu horeysay kooxda Premier League difaacanaysa ciyaartoy Manchester United oo sidaa oo kale sameysay 2002 ilaa 2009. City lagama badin 9 kulan oo furitaan ah, 7 kulan ee ugu dambeysayna waa ay badiyeen. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ama channelkeena Qaraaxa Tube. waan kaaga mahadcelinaynaa. waxaan rajeynayaa inaad subscribe dhihi doonto, like saar, una share garay asxaabtaada oo la wadaag mar walba si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. mahadsanid.